السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد AMA Associates. أنت وحن ديرة صارينا موادنك citizenship. موادن نمضوا وحي وضطار rights حقوق وموادنك كلها وضنك responsibility واجبات موادنك كسارا ilaalinta danaha wadanka xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka wadamada way ku kala duwan yihiin oo waxay ku xiran tahay constitution ama dastuurka lagu wada heshiiyay iyo legal framework haykalka sharciyadeed xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadka si kastaba ha ahaatee waxaa jira qodobo wadamada caalamku ay isaga mid yihiin waxaana qodobadaas ka mid ah right to vote cod bixin muwaadinku inuu codkiisa si madax bannaan u dhiibto muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin si madax bannaan inay uga qayb qaataan cod bixinta doorashada lagu dooranayo cidda ku matalaysa heerarka kala duwan ee nidaamka dawliga ah qodobka labaad waa freedom of speech xorriyatul qowlka oo aan ka hor imanaynin diinta islaamka muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin caburis la'aan inay u fasaxan yihiin xorriyatul qowlka ama xorriyadda hadalka iyo fikirka iyadoo aan laga baqayn dabagal ama ammaan darro u keeni karta muwaadinka ama u iman karta muwaadinka kagana iman karta xagga dawladda qodobka saddexaad freedom of assembly xorriyadda isku soo baxa iyo yagleelidda ururada ololeeya ee ka shaqeeya arrimaha bulshada muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin si xorriyad ku dheehan tahay inay isugu soo bixi karaan ka ololeyn karaan ka mudaaharaadi karaan arrimaha taabanaya bulshada bii'ada iyo wax allaala wixii ay moodaan waddanka inuu dan u yahay qodobka afraad freedom of religion muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay si xornimo leh ugu cibaadaystaan goobaha cibaadada iyadoo aanan jirin faragelin carqaladayn kaga imaata xagga xukuumadda markay imaato in ay diinta islaamka ee diinta waddanka ee dastuurkaba ah in ay si madax bannaani ay ku dheehan tahay ay rabbigood ugu caabudaan goobaha cibaadada qodobka shanaad waa right to fair trial muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in si cadaalad ku dheehan tahay loo mariyo nidaamka sharciga iyo inay helaan maxkamadayn cadaalad ah haddii dambi lagu soo oogo xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid ah inuu helo matalaad dhanka sharciga ah sida qareen u dooda xuquuqdiisa muwaadiniinta ama muwaadinka haddii aad lagu soo oogo waxaa muhiim ah in la ogaado eedaynta kama dhigna inuu yahay dembiile inta loo helayo caddayn xaqiijinaysa inuu galay faldambiyeedka lagu soo eedeeyey mar walba waxaa asal ah muwaadinku inuu yahay bari ilaa iyo lagu soo oogo eedii deetan lagu helo dambiyadii lagu soo oogay muwaadinku waa in laga ilaaliyaa arbitrary arrest xarig bilaa sabab ah qodobka lixaad waa rights to privacy muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin privacy in loo ilaaliyo asturnaanta macluumaadka arrimaha qaaska u ah shakhsiyadooda guryahooda xiriirka ka dhaxeeya muwaadiniinta iyo waaxiyaha dawladda ee adeegyada u fuliyo muwaadiniinta iyo ururada kale iskana difaaco faragelin aan sababaysnayn qodobka toddobaad waa rights to education muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin in ay dawladooda ka kafaalo qaado ama ay ka helaan waxbarasho tayo leh oo marnaba aynan jirin dareen xuquuq iyo takoorid ku salaysan midab hayb lixaad jinsi iyo hanti intaba iyadoo loo ilaalinayo sinnaanta horumarka shakhsiyadeed qodobka sideedaad waa rights to healthcare muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin ay dawladooda xaq ugu leeyihiin inay ka helaan daryeel caafimaad loona ilaaliyo badqabka jirkooda iyo maskaxdoodaba qodobka sagaalaad waa right to work and equal employment opportunities muwaadiniintu waxay xaq ugu leeyihiin dawladooda in ay si xor ah uga shaqaysan karaan badqabka goobaha shaqadoodana laga taxadiray si sinaan lehna loola dhaqmo loona siiyo fursado shaqo iyadoo marnaba lagu xiriirin jinsi midab qabiil lixaad iyo wixii la halmaala qodobka tobanaad oo aan ku soo gabagabaynayo xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid ah muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin inay yeeshaan hanti maguurto ah oo ay xor u yihiin inay siday doonaan u isticmaalaan lagana ilaaliyo in si sharci darro ahna looga xanibo amaba loogala wareego ha ahaato dawlad urur ama shakhsiyaad awood ku leh shacabka gudahooda intoodaba intaas waxaan ku soo gabagabaynay xuquuqda muwaadinku uu ku leeyahay waddankiisa qaybta kale waxaan kaga hadli doonaa xuquuqda waddanka uu ku leeyahay muwaadiniinta